لا إله إلا الله محمد رسول الله. gabar saqiir ah oo dhawaan dhalatay ayaa waxaa la sheegay in lagu soo tuuray luuq u dhaxeeya laba guri oo ku yaala xaafadda raadeerka ee degmada Daynile. luuqa lagu soo tuuray gabadha waa luuq yar oo cariiriya oo u dhaxeeya laba guri. gabadha ayaa korkeeda waxaa la saaray qashin waxaana madaxa loo geliyay digsi. dadkii deegaanka ayaa noo sheegay gabadha korkeeda in lagu arkay jirdil aad u xoog badan kaasoo xataa madaxeedu uusan isku oolin. dadka deegaanka ayaan wareysanay oo noo cadeeyay qaabka meeshan loo soo dhigay iyo siday ula kulmeen. ka hor intaanu u gudbin buucaas waxaan idin ku codsanayaa inaad subscribe saartaan channelka muuqaalkana aad like saartaan. mahadsanidin. xaafad gabar oo inta maraayo aalay dhaa cunug meeday luuqan yaalo. cunuga markaan fiiriyana maskaxda ilaa dhulcaan dhan waa kala barneed. wajiga dhan waa isku dubnaa indhaha waa ka baxsanaay. mara ma saarneen jawaan yiriisa aasas loo soo saare. digsina madaxa ugu jiray oo bahal jajaban. marka waxaan ka codsanayaa inuu taas ilaahay kan kara ku rido. ibidu waa ku dhagneed sida ibidi oo uu dhashtay xudunta ilaa ibidu way ku dhagneed. laakiin maskaxda ilaa dhinaan ka bilaaw waa kala barneed. mara ma soo saarin gabarena ahayd. xalay meeshan waxaa ka dhacay arrin aad iyo aad u foolxun oo mucjiso ah. gabar yar oo saqiir ah oo xilliga umusha ku jirto oo ibideedii weli ay ku dhagan tahay ayaa meesha la soo dhigay iyadoo si aad iyo aad warxan darro ah mataqaanaa wajiga looga burburiyo dhibaato loogu geystay. waxaa ugu darnayd markii meesha la soo dhigay waxaa saarnaa jaqaf, waxaa saarnaa kartoon, madax waxaa ugu jiray digsi, wajiga waa ka burbursanaa. mataqaanaa ilmo yaroo meesha ku ciyaaraya luuqa waxay ku galeen igu cararay way ku kufeen. way noo soo sheegeen marka anaga meesha tagnana arrintan mucjisaan la kulannay iyadoo laga yaabo markii hore si qalad ah oo mataqaanaa misaga ay ku dhalatay haddana markii dambe dembi ka culus ayaa la galay oo ah in qofkii la dilo. marka waa soo saarnay banaankan keenay halkan mataqaanaa ardayda gadaashadan soo dhignay. waxaan u yeernay waaxda degmada qoladii ammaanka qaabilsanaad, waxaan u yeernay booliskii waa tusna wax meesha ka dhacay. marka arrintaas aad u faash xunaa ka dhacday oo saqiirkaas dhibkaas loogu geystay. waxayna ahayd gabar yar oo ibidii xataa mataqaanaa maamadu ay ku dhashay ay dhinac taalay, xudunta ay ku taalo, madaxana si xun looga burburiyay. arrintaas meesha ka dhacday. meeshaan waxaa ka dhacay gabar yar oo umulaho yiriis oo markii la soo dhalo xudunteeda ku taala halkaan lagu soo tuuray. arrin aad u naxdin badan ay ahayd oo dadka dhan ay la murgoodaan. marka hadeena cadina agti dhashay inay islaamka iska sii deedaan masaajidka ilaahay ee dhigtamaan inay tuurto ma ahayn. wajiga waa laga jijibiyay, dhagaxay ku sii deeyeen, digsi madaxay u geliyeen, maryana way ku dabooleen jaqafiyo. arrin murugo badan oo aad iyo aad looga naxay ahayd. xalay waxaa ka dhacday arrin aad iyo aad u xun. ilmo yariis oo halkaan xeebta ku dhadheelayaan waxay arkeen cunug yariis oo halkaas taalo dhagaxay wajiga ugu daysay xitaa aad iyo aad ugu naxna walaa aad iyo aad ugu naxna walaa arrin xun ahayd waan fariirna u qaadatay. wajigeeda cunuga meesha dhigtay dhagaxayna ku sii daysay. wajiga dhan waa ka burbursanaa aniga xitaa maan arki lahayn ilmo yariis oo luuqa ku ordayaan arkeen. gabadhii maadaama ay maamulka degmada ay meesha yimaadeen iyagii aan ku wareejinay iyagaan waxaan saarnay waxay dhaheen maadaama aan meesha looga tagi karin dhibaatadan ay ku dhacday qofkiina ma taqaan hadda wixii dambiga aan gacanta ku haynana aysan jirin waxaan amraynaa in la aaso xaafadii iyo degmadii iyo wixii dhan iskaashada saasaan lagu aasaxay. ay caruur kama dhicin laakiin dhibaato waxyaabo badan ka dhacay in ma taqaan qof dumar oo la dilay meesha meedkeeda lagu soo toona aragnay dhowr jeer ma taqaan gabar yar oo 9 jira naag weyn oo ma taqaan qaad iibisa waxyaabo badan waa ka dhaceen laakiin saqiir sidaan loo galay wili anagu ma aragna wax nagu cusub aan hore u arag laakiin kulay hadda dadka iska qarso ilaahay badan iska